habeen wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena caawa waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Somaliland uga adkaatay go'aanka ee visa iyo sidoo kale Somaliland oo arrintaasi meel ay ka martala xiisad cusub oo isfahmi la'aan ah oo ka dhaxdhacday dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo mar kale ismaandhaafkii siyaasadeed oo laga cabsi qabo inuu dib u qarxo deni oo markii ugu horeysay qirtay in maamulkiisu uu ku fashilmay xakamaynta kooxda argagixisada ah ee Daesh maamul goboleedka koonfur galbeed oo mucaaradka fil Baydhabo ay taabagelinayso ay gaarayaan magaalada Baydhabo iyo lafta gareen oo arrintaasi si aad u diidan Ali Guudlaawe oo weerar afka ay ku qaadeen siyaasiyiin mucaaradka ah iyo sidoo kale isbedel laga dareemayo maamul goboleedyada dalka iyo in waqtigoodii uu soo dhamaaday qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena inta uu hawada ku jira waxaa ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre oo dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sareysa uga digay tacadiyada sii kordhaya ee ay ka wadaan magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena fadlan share garee saaxiibadana u gudbi halkan falow soo dhalay garee muuqaalkan aynu ku bilaabano dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maamul goboleedka Somaliland ama dowladda Somaliland hadba sida u taqaano waxay uga adkaatay loolanka e-visa waxayna Somaliland haatan ku qasban tahay in ay daba kacdo dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in si rasmi ah guud ahaan dalalka ay uga dhaqan geliso go'aankeeda viisaha online-ka ee visa kaas oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ka lagu weydiiyay garoonka Dubai ee Imaaraadka Carabta xilli uu socday magaalada Hargeysa madaxda Somaliland ka tirsan ayaa la weydiinayaa inay la yimaadaan e-visa Maxamuud Xaashi ayaa maanta shaaciyay in uu si dirqi ah uga badbaadiyay nidaamka e-visa ay bixiso Soomaaliya in uu jarto Somaliland oo iyadu doodoodu ay tahay in ay tahay dal madax banaan siyaasiyan oo hogaaminaya mid ka mid ah saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland ayaa arrintan si weyn uga dhidiyay waxaana sheegay in xukuumadda Somaliland ku fashilantay kaligiis ma ahan dad badan oo reer Somaliland ah kuwaas oo doonayay inay dib ugu laabtaan Somaliland ayaa aeroboorada Dubai iyo sidoo kale Istanbul waxaa lagu xanibay socdaalkoodii waxaana laga dalbaday in ay la yimaadaan warqadda e-visa ee Soomaaliya bixiso waxayna ku qasbanaadeen in ay warqadaasi jartaan si ay ugu laabtaan gurigooda oo Hargeysa xiisad cusub ayaa ka dhex qaraxday Soomaaliya iyo Somaliland mar kale waxaa hawada isku shareeri kara ismaandhaafka siyaasadeed ee diblomaasiyadeed ee labadaasi wadan u dhaxeeya waxaa soo ifbaxaya xiisad u dhaxaysa Itoobiya iyo Somaliland waa Soomaaliya taas oo salka ku haysa qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maamul cusub ugu sameynayso maamul goboleedka Jubbaland gobolka Gado taas oo ay ka soo horjeedo Itoobiya sida xog lagu helay muran ayaa hareeriyay booqasho aan hore loo shaacin oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo todobaadkii hore ku tagay magaalada Addis Ababa Xasan Sheekh waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed intii u dhaxaysay Axaddii Oktoobar 12 kulanka ayaa daba socday warar maalmo ka hor ay ka baxay oo sheegaya in Muqdisho ay ku dhaqaaqayso qorshe Plan B ah taas oo ay doonayso in ay gada ka sameyso maamul goboleed cusub oo Jubbaland lagu magacaabo taas oo aan hoos tagin Axmed Madoobe isla markaana laga garab dhisayo kadib markii ay burbureen wada hadallo dib u rabay in Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud fila Soomaaliya lagu heshiisiyo Itoobiya ayaa la sheegay in qorshahan ay u aragto mid halis qaran ah taas oo amnigeeda khatar ku ah soo bixitaanka qorshahan ayaa murjinaya xiisada deganeed taas oo ah mid jilicsan oo jirtay bishii la soo dhaafay ama bilihii la soo dhaafay taas oo ismaandhaafka siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ee labada wadan hoos lagu dhigay bishii December 2024 labada wadan ayaa waxa ay kala saxiixdeen baaqa Ankara iyadoo ku ballamay in ay ixtiraamaan gabi ahaantoodba madaxbanaanida midnimada iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee midba kale uu ula dhaqmo sidii wadan dhammaystiran oo aan arrimihiisa hoose la faragelinin Itoobiya ayaa 2500 oo askari waxa ay ku biirisay howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya oo qaarkood jooga gobolka Gado gobolkaas ayaa sidoo kale Itoobiya si aad u daneynaysa waxa ayna rabtaa inuu noqdo gobol dadka maamulaya ama madaxda joogta ayaga ay aad ugu dhow yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya oo Axmed Madoobe isfahmi la yihiin ayaa iyagu waxa ay xal u arkaan in maamul cusub oo aan Axmed Madoobe hoos tagaynin la sameeyo laakiin Itoobiya waxay rabtaa in arrintaasi iyadu ay go'aankeeda lahaato
markana Puntland madaxweyne Deni ayaa wuxuu qirtay in dayaca maamulkiisu uu keenay in ay faafaan kooxda argagixisada ah ee loo yaqaano Daacish. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa qiray in maamulkiisu uu dayacay ka hortagga ururka Daacish, taasi oo sababtay in kooxdan sanadihii dambe ay awood ballaaran ku yeelato gudaha deegaanada Puntland. madaxweyne Deni ayaa sheegay in kumanaan xubnood oo ajnabi ah kuwaasi oo uu ku tilmaamay dambiilayaal iyo sidoo kale qaatiliin inay si sahlan uga soo degaan xuduudaha, dekedaha iyo garoomada diyaaradaha, isla markaana ay adoonsi iyo caburin ku hayaan shacabka ku nool deegaanadaasi oo iyagu ay tageen oo inay yihiin kuwa dhibaateeya dadka jooga goobaha ay ka taliyaan. waxa uu sheegay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo hadlaya, kumanaan ajnabi ah oo qaatiliin ah ayaa degay dhulkeena, waxa ayna adoonsadeen dalkeenii iyo dadkeenii. dayaca meesha uu ka yimid cidda loo haysto waa dowladda, bulshada caadiga ah laguma eedeyn karo, ayuu yidhi Siciid Cabdulaahi Deni oo u muuqday mid haatan fahmay qaladkiisa. waxa uu intaasi ku daray in muddo sanad ah ay ciidamada Puntland dagaal kula jireen ururka Daacish, isla markaana ay ku guuleysteen inay wiiqaan awoodooda dhaqaale iyo ciidan, isagoo xusay in howlgalkaasi uu marayo gabagabo laguna wado in diiradda la saaro howlgalka Colmadow. markana magaalada Baydhabo oo xaaladeeda siyaasadeed aad u kacsan tahay, maamulka Koonfur Galbeed madaxweynahooda mucaarad ka soo horjeeda ayaa halkaasi doonaya inay ka degaan, kuwaas oo raba in doorasho laga qabto. mucaaradkan ayaa waxaa hogaaminaya Shariif Sakiin iyo Mursal, waxaana shaaca ka qaadeen in Baydhabo ay tagayaan arrimo la xiriira doorashooyinka qof iyo codka ah si halkaasi ay uga bilaabaan dhaqdhaqaaq iyo ololo doorasho. sidoo kale waxay intaasi ku dareen in ujeedka ugu weyn ee tegitaankooda Baydhabo ay la xiriirto mid lagu xoojinayo xisbiga ay diiwaan gashadeen ee horumarinta iyo midnimada qarankaas oo ay ugu talagaleen isaga iyo Shariif Xasan, waa Mursal iyo Shariif Xasan, in ay ku galaan doorasho iyo olole. Mursal oo xisbiga gudoomiye ku-xigeenka ah ayaa cadeeyay in Baydhabo ay ka furanayaan xarun cusub si ay u dardargeliyaan ololahooda, balse waxa uu ku tilmaamay in weli culaysi ay jiraan, taasoo uga imaanaya maamulka lafta gareen uu hogaamiyo. 21 bishan ayaan u soconaa magaalada Baydhabo si aan u furnaa xarunta xisbiga Koonfur Galbeed. irdaha ayaan u furi doonaa, laakiin haatan waxaan dareemaynaa xaalad culus. sheekadu waxa ay noqotay dadka diyaaradaha laga kireysanayo ayaa la handadayaa, waxaa la dhahayaa qofkaasi ma soo qaadi kartaan, waana sababta uu u sameynayo madaxweyne lafta gareen. arrintaasi ayaa ah inuu ka cabsanayo madaxdan ka tegaysa magaalada Muqdisho ee gaaraysa Koonfur Galbeed. markana maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu wajahayaa madaxweynahooda qalqal siyaasadeed, waxaana ku kacay ummadii inta badan siyaasiyiinta ahayd kuwaasi oo doonaya inay kursiga ka tuuraan. musharaxiin kala duwan ayaa usoo baxaya maamulkaasi oo ugu horeeyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Tarsan iyo sidoo kale nin lagu magacaabo 30 milyan haysta Cabdulqaadir Maxamed Nuur, waxa ayna dhammaantood doonayaan inay xil ka qaadaan ninka lagu magacaabo Guudlaawe. Tarsan oo arrintan ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in muddo 30 sano ah Guudlaawe uu dib u celiyay maamulka Hirshabelle halkii laga sugayay inuu hore u gudbiyo. waxa uu sheegay in maamulka Hirshabelle magaaladiisa caasimadda ee Jowhar, isagoo ku sugan airportka iridda laga soo galo ee magaalada wadankaasi ama deegaankaasi dhan iridda u ah, inuu waayay masquul uu galo si uu adeegiisa xaajada ah u guto. taasna ay tahay midda ugu liidata ee laga helo maamul goboleed. waxauna sheegay in fashil maamulkaasi uu ku sugan yahay loona baahan yahay in la badbaadiyo. Cali Guudlaawe ayaa guud ahaan waxaa lagu eedeynayaa inuusan wax horumar ka sameynin maamulkaasi intii uu joogay. markana Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre ayaa waxay uga digeen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya xariga iyo tacadiyada soo kordhaya ay ka wadaan magaalada Muqdisho. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Cali Khayre oo ayaa qoraal ay ku soo daabaceen barahooda bulshada waxay ku cabaareeyeen xarig iyo tacadiyo sii kordhaya oo ka socda magaalada Muqdisho, isagoo tusaale u soo qaatay dhacdadii ugu dambeysay ee xalay lagu afduubtay Samsam Cumar Cali oo ka mid ahayd haweenka suuqa Sinai. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in afduubkaasi uu muujinayo sida madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu tumanayaan sharciga iyo nidaamka dowliga ah, isla markaana uu yahay fal wuxuushnimo ah oo aad u liito oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kula kacayso shacabkeeda, oo ayna tahay in wax laga qabto.
dhanka kale ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dowladda isaguna waxa uu sheegay inay ku qasban tahay in Samsom Cumar ay ka saarto dadka la haysto islamarkaana ay tahay qof muwaadinad ah. waxa uu sheegay Xasan Cali Khayre kuna baaqay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si degdeg ah shuruud la'aan uu ku sii daayo hooyo Samsom Cumar Cali oo duruufo adag ku korinaysa caruur agoon islamarkaana si joogto ah xarig ay ugu hayaan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya islamarkaana ay dilayaan. waxa uu sheegay in dad kale oo hooyooyin ah ay barakicinayaan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya danyar Soomaaliyeed kuwaasi oo dhulboob daran lagu hayo, isagoo uga digay dowladda federaalka ee Soomaaliya in awoodeeda ay u isticmaasho dadka shacabka ah.